kurbada iyo kadeedka koonka Kim iyo Kuuriyada ayaa ugu wacan marka laga tusaale iyo tilmaam qaato hadaladiisa handadaada ka muuqda. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa mar kale ka digay in Kuuriyada Waqooyi ay si bareer oo ku talagal ah u isticmaali karto hubkeeda halista xambaarsan waana nuclearka kaas oo suuragal ka dhigi doono haddii ay sii socdaan hanjabaadaha ka dhanka ah qaranka kan ee dunida uga imaanaya. dhinaca kale saraakiisha ugu sarreysa ciidamada qalabka sida ee dalkiisa ayuu si kal iyo laaba ugu ammaanay dhoolatus military oo heerkiisa u sarreeyay kaasi oo lagu qabtay toddobaadka kan caasimadda waddanka Kuuriyada Waqooyi. hogaamiye Kim waxa uu muujiyay rabitaankiisa joogtada ah taas oo ku sii dhiirigelinaysa inuu sii horumariyo hanaanka kala duwan ee ciidamada dalkaas waliba hubkiisa gaarka ee nuclearka waxaana tani ay ka dhigan tahay inuu doonayo inuu si dhammaystiran oo sarreysa u hagaajiyo hanaanka difaaca dalkiisa xuduudda ciidamada waddankiisa iyo dhammaystirka guud ahaan howlaha hubka oo dunida qaar qatar ay u aragto hadda. waxaana uu sheegay inay tani ka dhigan tahay mid looga hortagayo dhammaan isku dayga qatarta ah iyo dhaqdhaqaaqyada halista ah oo ay ku jiraan hanjabaadaha kala duwan ee dalkiisa uga imaanaya dunida kaas oo la xiriira nuclearka dalkiisa ee maalinta ka dambaysa sii kordhaya. waxaana uu yiri waanu ka warqabnaa ciidamada cadawga iyo wadamada annaga danaha iyaga horumarka ku dhisan caqabada u arka balse marna kama waaban doono ujeedooyinkeena himilooyinka iyo ahdaafta maangalka ah xambaarsan. warbaahinta ayaa sheegtay in Kim uu u yeeray saraakiisha militariga si uu ugu ammaano shaqadooda intii lagu jiray dhoolatuska halkaas oo waqooyiga ay ku soo bandhigtay hubkii ugu weynaa ee ku jira hubkeeda nuclear oo ay ku jiraan gantaalada balaastikada ah ee isaga kala goosha kuwaas oo suuragal ah inay gaaraan dalka Mareykanka. waqooyiga ayaa sidoo kale soo saaray noocyo kala duwan oo gantaalada ridada gaagaaban ee shidaalka adag kuwaasi oo loogu talagalay in laga soo rido gaadiidka dhulka ama dabcan badda dhexdooda waana kuwo qatar ah marka la fiiriyo hanaankan hubka. waxa uu kurbo weyn ku hayaa koonfurta Kuuriya iyo Japan. bandhiga dhoolatuska ee lagu xusayo sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa yimi xilli Kim uu dib u soo nooleeyay hindisaha nuclearka ee looga dan leeyahay in lagu qasbo Mareykanka inuu aqbalo fikradda dalkiisa oo ah quwad nuclear ah isla markaasna meesha laga saaro cunaqabataynta dhaqaale ee curyaamisay waddankan. isagoo la hadlayay kumanaan ciidamo ah iyo daawadayaal isu soo abaabulay dhoolatuska inay ka qayb galaan Kim waxa uu wacad ku maray in uu ciidamadiisa dabcan hubka nuclearka ku horumarin doono xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan waxaana uu ku hanjabay inuu isticmaali doono wax walba haddii laga joojin kari waayo fariimaha handadaada ah ee galbeedka ka imaanaya. faalooyinka Kim ayaa soo jeediyay inuu sii wadi doono dagaalka kicinta ah ee tijaabinta hubka si uu u garaaco cadaadiska Washington iyo Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Koonfureed ayaa bisha tan May daafuraysa xukuumad cusub oo muxaafid ah taasi oo laga yaabo inay mowqif adag ka qaadato qorshayaasha Kuuriyada Waqooyi. hanjabaada Kim ah inuu adeegsado quwadiisa nuclearka si uu u ilaaliyo madmadowga ku jira dalkiisa danaha asaasiga ah ee sida madmadowga leh loo qeexay waxay suuragal tahay inay muujiso caqiidada nuclearka ee sii kordhaysa taas oo walaac weyn u keeni karta Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Mareykanka sida ay khubaradu qireen. Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay 13 wareeg oo hub ah ilaa hadda sanadkan oo ay ku jirto tijaabadii ugu horeysay ee buuxa ee dabcan hubka la yiraahdo ICBM tan iyo 2017 halka Kim uu ka faa'iideysto jawiga wanaagsan si uu u sii wado barnaamijka hubka iyada oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay weli ay ku kala qaybsan yihiin dirirta Ruushka iyo Ukraine iyadoo welina aysan muuqanin go'aamo wax ku ool ah oo laga qaatay qadiyadda dagaal ee dalalkan xilli dhooriyaamin weyn dagaalkan uu u geystay dunida dhan